السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا قدرنتي قيمها مدن برتاد نقل سعوتان وقلبي تي في حرنتيسا مقالة ادمنتنا دالك كندا waxaan caawa aan studio ku soo casuunay nala jooga waa mudane maxamed cabdi dugsiye oo runtii ahaa madaxweynihii hore maamulka Awdal State maamul goboleedka Awdal State xilal badan ka soo qabtay waxaan rabnaa bal caawa inaan markaas aan ka wareysano xaaladii iyo shaqadii Awdal State xagga maraso mudane maxamed ku soo dhawow waxaan ogsoonahay mudane maxamed inaad muddo 2 sano هذا هيد مدحويني أودل ستيت مركب المدن محمد وحن ربنا نكويدينو حالات دمانت أودل ستيت كسوغان تاي إن نوغو ورنتيت بعد ما ده رنتي إن ساد ولا صعته لبسنا إيانا نوها إن جرب كي كله مدحوينا كها أودل ستيت وحن رنتي وجد جينا من نمرة أمضى inay umadu midowdo oo ay faa'iido u lahayn tafraaruqan iyo ay sidaas ay nadan wahayn Awdal State marka waxaan gartay in sababtan uga digay taas ahayd hawshii meel fiican bay noo maraysaa imika markii anigu aan ka digay in umadiina dib ugu celiyay dhalintii way isku yimaadeen labadii garab way isku yimaadeen dood baan noo socota hadda teleconference yaanu sameynaa every Saturday waxaan ka hadalnaa sidii ummadda la isku keeni lahaa ay doorasho u dhici lahayd ummaddu ay iyagu ku doortaan cidda ay maamulka u dhiibanayaan tiina waan wadnaa meel fiican bay noo maraysaa waa mahadsan tahay bal maxaad soran kartaa dadka u sheegi kartaa waqti sugan ood og tahay weli ood ogtihiin ma jirtaa doorashada lagu dhawaaqi karaa amba maamulku noqon karo mid madaxdiisii iyo wixii soo dhow yihiin umalayn maayo inuu muddo dheer qaadan doono doorashadu weli waxay gunaanadkii bay ku jirnaa waxaan filaynaa inay dhacdo doorashada Soomaaliya ka dhici doonta ka hor inay dhacdaan filaynaa ilaahayna uu nala qabanayaa dhawaanna waan soo sheegi doonaa ummadda website-da waan soo gelin doonaa idaacadaha waan ka sii dayn doonaa wayna noo dhowdahay mana muddo fogna ma foga runtii waayahay waa hagaag laakiin maxaad ka oran kartaa xaaladda imika dalka ku sugan yahay waxaan aragnaa gobolka Awdal State inuu yahay imika inay doorasho ka socoto ay maamulka Hargeysa ay ka wadaan doorashooyin sida ay dhanka kale bariga uga wadaan maamulka Khaatuma ay rabaan inay dadka dib u hantaan marka bal arrinkan maxaad ka sheegi kartaa horta sidaad ula socoto hore baanu waan ka hadlay arrinta doorashada iyo kaararkan ay bixinayaan anigu hadan Awdal State nahay waan ka soo horjeednaa inay doorashada laga qayb galin wax dan oo ugu jirta ma jirto ummadda reer Awdal doorashadan reer baa iska wata xisbiyo beesha dhaxa iska wata kay dooranayaan madaxda ay dooranayaan waa reer qura bal iyagoo wax dooranaya ka dhex galay adaa watee haddii ay tahay wax dantooda ka turjumaysa maxaa keenay inay dilka iyo dhac ay ku wadaan waxaan ogeyn 2 week ka hor inay lughaya dhibaato ka dhacday sidaad ula socoto waa la socotaa damac baa ku jira damac siyaasadooduna damac dhul banna uu ku jira reerkan horena waan uga hadalnay inay dalbalaarsi ay rabaan inay sameeyaan tiibay maantana unbay kamid tahay wixii aan sii sheegayna ka hadlaynay inay dhulka ummadda reer Awdal ay dhulkooda sheegtaan badahooga ay sheegtaan dhulka yani resources kale ay sheegtaan oo aad ogtoo samoodi baa kamid ah ay wax alla waxay u ogol yihiin reer Awdal ayna jirin reerkan dawladda sheeganaya Somaliland marka dadka ummadda reer Awdalna ma arkaan yani dhibaatada ay reerkan iyo cagajulaynta ay ku hayaan goor arki doonaan runtii garan mayno ilaa we have to save them Awdal State baana ka saari karta dhibaatooyinka caynkaas oo xoog yeelata baa ka hor joogsan karta waxyaalaha nimankan ka sheekeynay waxaan ognahay inay in badan ay ka cawdaan maamulka Hargeysa nacam siyaasadan banaanka lagaga hayo ee wadamada reer galbeedka sida maamulka Khaatuma State Awdal State
ay xafiis kasta ay tagaan in laga dabagalo. waxaan ogay nimanka maalmihii ugu dambeeyey bishii ugu dambeysay inay go-aan ku gaareen sidii ay Soomaaliya usii kala kaxayn lahaayeen, welibana ay ku raadin lahaayeen iyagoo dantooda ka hadlaya sidii ixtiraaf amba ogolaasho ay ku heli lahaayeen. taasoo keentay muddadii dambe inay meel kasta maraan, ay maal badan ku bixiyaan, ay welibana san ognahay ay saduuqii ixtiraaf raadiska. arrinkaasi bal maxaad ka oran lahayd amba hawl intee leeg baad ka gasheen? runtii waan la soconnaa inay guddi u saareen aqoon raadis ay ku magacaabeen oo u badan weliba reerka iyagu ay u magacaabeen. annagu haddaanu reer awdal nahay halganka hore baan u wadnay, albaab walo adduunkana waanu ku garaacnay, warqadana waanu qornay, tii baan soo xoojinayna. we will double our effort today from today on. marka imika weliba maamulka la sameeyo cusub waxaan ku rajo weynahay inaan speed xoog leh iyo gelino sidii aan uga hortagi lahayn waxa ay wadaan, oon annagu awoodayada laba jibaarno, dadaalkayga laba kordhino sidii ayna u dhicin. albaabkay garaacan annaguna dhinaca kale daaqadaan ka soo galno. marka waxa weeye waa arrin runtii ku habboon in laga hortago intay hadda oo weliba si iyadoo la isku duuban yahay reer awdal meel kastay joogaan. arrintaas waa khatar kusoo socotaa maamulka awdal haddii ay taasi ay u dhawowdo. waan garanay, bal quwaddii dibadda haddii aad Itaaliya xoog leego Itaal weyno intaasaa saaraysiin, tii gudaha wax ma nooga sheegi karaysaa garab military amba dad hubeysan amba in laga aas-aasay ay jiraan dad iminka u diyaara inay hantaan dhulkooda? horta way jiraan oo imikadaba way joogaan dad diyaar u ah any moment loo baahdo dagaalka qaadi karaa. shaqadeedii ma gasheen? shaqadeedii waanu ku jirnaa. weliba waxay sugayaan imika intan transitional periodkan ku jirna inta maamulka cusub la sameynayo ayay rabaan. laakiin the strategy is already, the layoutki waa la sameeyey iyo sidii arrintaa loo fulin lahaa. waa iyadoo qoraal ay taallaa, iyada oo sharci ay taallaa. waxaa la sugayaa un maamulka cusub hirgeli doona hadduu ilaah yidhahdo mustaqbalkan dhawe soo socda. waan garanay, aad iyo aad baad mahadsantahay mudane maxamed. maxaad baa ku diri lahayd reer awdal state? reer awdal state runtii taan u dirayn waxa weeye harumaysanina. waa reer baa wata dowladda Somaliland la yidhaahdo, iyagaa wax walba wata, dhaqaale wax ka soo gala oo soo gaari ma jiro reer awdal. marka waxaan leeyahay reer awdal anigu waxaan rumaysnahay anagu iyo maamulka la sameyn doona iyo guddiga hadda ka talisaba in ay reer awdal runtii ayna dheg u dhigin wax dowlad la yidhaha Somalilandna ay jirin. haddii ay Somaliland ka go-ayso Soomaaliyana in Somalilandna ay kala go-ayso. taasaan u sheegaynaa. if Somalia is divisible, so Somaliland iyaduna waa kala go-aysaa period. yani iyaduna isma haysan karto. maxamed, sida iminkaan ognahay pressure kaga yimid wadamada reer galbeedka ama deeq-bixiyaasha ayaa waxay u caddeeyeen inay jirin wax go-itaana, laakiin ay tahay iminka balaanka iyagu wataan maamulka Hargeysa in loo wada hadlo koonfur iyo waqooyi ay ka hor yimaadaan maamul goboleedadan kale jira sida Puntland oo kale, Jubaland oo kale, iyo any maamul goboleed kastoo jira inay ka hor yimaadaan ay yidhahdaan federaal iyona jiri laakiin ha loo yimaado amba waxaa loo qaybsado waqooyi iyo koonfur. umalayn maayo taasi inay hirgalayso waqooyi koonfur inay taasi, waayo adduun weynuhu maanta waad ogtoo federalismkaasu wadaa. they will be part of the federal Somalia haddii ay rabaan inay kasoo qayb galaan. anagu waxaa taasi nama khusayso haddaan reer awdal nahay. anagu waxaanu rabnaa iyagu beesha dhexe iyaga oo goboladoodii as a federal hawa qayb galaan, awdalna iyada oo representativekeedii iyo maamulkeedii wadata inay federaalka uga qayb gasho sida Khartoum state iyo Awdal state iyo Maakhir state ay ka mid noqdaan maamulada cusub ee Soomaaliya ay ka qayb galaan wada hadallada. marka ma taan ka dagaalamayna waa taa in yani as a lamsam la isku qaado la yiraahdo waqooyi oo annaga oo reer awdal ay beesha dhexe ay wadato yani iyagu horkacayaan in la wada hadal ay ka qayb galaan. aad baad mahadsantahay mudane maxamed. waan kaaga mahad celinaa waqtigaaga sharafta leh aad noo hurtay. waad mahadsantahay TV.